سلام كدزيس هل كان شوكته فرحد وين بينات هاي مانتي أرنتان هذا البلد ما قبله لكن وح أورنكرا فرحد وين بينات وحي موجنيسا حوجين تقرن ماذا دلكين حوجين الدولة نمذينا إن جرون كي آذن عبد الانترناشنال إيربورت وطاس وحرم يسوق عن بلين قبل جرون كلام من شمكيات إيربورت waxaan oran karaa waa farxad weyn waa horumar waxayna muujinaysaa hadba sida tilaabo ay qarannimadayda ama dawladnimadayda ay u qaadayso waxaan oran karaa dhiirigelin weyn weeye aad iyo aad baan u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Prime Minister waxaan ognahay inaad waqtigaadii cariiriga harubtay oo xilli maanta baarlamaanka laga sugaayo aad halkan u timid waxaan kugu soo dhaweynaynaa African Express Airways flightkeeda XU526 inay noqoto mid ugu horeysa ee tagta meesha Prime Minister runtii waxaan arkayaa in ay tahay guul u soo hoyatay xukuumaddaada maantana insha Allah taala aan rajaynayno si aqlabiyad badan inay ku guuleysato ilaahay idinkiisa haddii ilaahay raalli ka noqdo aan cabsi nooga jirin waxaan kugu soo dhaweynaynaa wasiir ku soo dhaweynayaa si kugu soo dhaweeyo barnaamijkeena aad noogu sameeysid dispatching diyaaradda markii ugu horeysay ee flight ka baxay Muqdisho ee Nairobi tagamaadsanay السلام عليكم مدن شرفت لكن joogta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaadanayno xafladii sagootinta diyaaradda ugu horeysay ee muddo 10 sano ku dhow ka safarta Muqdisho oo toos Nairobi u tagtay gaarin aad u wanaagsan gaar ahaan waxaan ay farxadoonaya maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay safiirka ay Kenya inaan noqoto wixii ugu dambeeyay aan ka qabanno wadanka Kenya marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan wasaaraha ku soo dhaweeyo oo aan u rajaynayo guul insha Allah dawladda ansixinta dawladda baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku bishaaray hadda ka bacdi inuu fududaan doonto xiriirka waa mahadsantiin wana reesar بسم الله الرحمن الرحيم وزيرada xildhibaanada agaasimayaasha kala duwan ee aeroboorka wakiilka nagala jooga safaaradda Kenya shaqaalaha kale ee wasaaradaha kala duwan hay'adaha amniga bahda saxaafadda shacabka Soomaaliyeed waan idin salaamo marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharaf weyn ii ah in maanta oo ah maalin taariikhi ah aan idinkala soo qayb galo xafladdan aad ku maamuusteen aeroboorka aadan cadde dhexdiisa in maanta aan isugu nimaadno in 10 sano ku dhowaad kadib la soo gaaray wakhtigii aeroboorka aadan cadde uu u shaqayn lahaa sida garoommada kale oo dunida oo aan maantay halkan u taagannahay in diyaaraddii ugu horraysay ay halkan ka bixi doonto iyadoo aadaysa magaalada Nairobi aanayna sii mari doonin meelihii ay mari jirtay sida Wajeer oo kale taasi waxay ka turjumaysaa marka ugu horraysa shaqada daalka badan oo ay qabteen walaalahayga ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee aeroboorka wasaaradaha kala duwan ee waddanka safaaradaha kala duwan oo ay ugu horrayso safaaradda Kenya waxa kale ka turjumaysaa marka uu dalka ka jiro nidaam xasilooni ah oo ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu wada shaqaynayaan ogolaha shacabka iyo xukuumadda ay wada shaqaynayaan oo hay'adaha kala duwan ee dawladdu ay u soo jeestaan inay isqabqabsiga ku beddelaan wada shaqayn waxaad arki doontaan annagoo gaarna fursado la mida kuwan oo kale gaarnana xal waara oo dalka Soomaaliyeed wax ka tara
in maanta kadib madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya oo ku kulmay magaalada Nairobi aan halkan isugu nimaadno muddo kooban kadib waqtigii la soo doortay madaxweyne Farmaajo lana magacaabay ra'iisul wasaaraha lana soo dhisay xukuumad aan gaarno hadafkan waxay dhiirigelinaysaa waxa aan qabsan karno mustaqbalka waxay tusaale ka tahay haddii aan gacmaha isqabsanno meesha aan waddankan gaarsiin karno waxay iftiiminaysaa haddii la wada shaqeeyo in dalkan horumar gaari karo waxaa kale ay ka turjumaysaa in isqabqabsi aanu dalkan horumar gaarsiinayn arrinkani kow waxa uu dhiirigelinayaa inuu dhib yareeyo socdaalka dadka Soomaaliyeed in mas'uuliyiinta waddankan ka shaqeeya ay u safraan si sharaf leh in dadkeenna waayeelka oo tabaalaysan aan lagu dhibaateyn inay fadhiyaan saacado magaalo Wajeer la yiraahdo waxa kale oo ka turjumaysaa in dalka Soomaaliyeed madaxdiisa iyo nidaamkiisaba loo haayo xushmad iyo qadarin dawladnimo heerkaas inaad gaartaan intiina ka soo shaqaysay waa inaad dareentaan in karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay si tartiib ah u soo noqonayso waxaa la rabaa marka ugu horeysa si arrinkani aanu dib ugu dhicin ama dib u noqon hay'adaha amniga iyo shaqaalaha garoonka iyo madaxda waddanka waxaan kula dardaarmayaa in laga fogaado wax walba oo noo keeni kara dhibaato horseedi karana inaan dib u noqonno meeshii aan ka nimid nabadgelyadu waa udubdhaxaadka aasaaska nolosha in la aamino garoonka aadan cadda diyaaradaha ka baxa inay nabad yihiin waxay la mid tahay in la aaminay hay'adaha nabadda ama hay'adaha amniga waddanka si haddaba taas aan u dhiirigelinno waxaan idinku boorinayaa idinkana codsanayaa kulligiin inaad u soo wada jeesataan amniga yaan la aqbalin hal shay oo shaki gelin kara wada shaqayntana dhex bartay annaga iyo dawladda Kenya yaan mas'uuliyad xumo awgeedna loo kugu celinin shacabka Soomaaliyeedna loogu celinin dhibaatadii ay ku jireen 10 sano la soo dhaafay waa inaan dunida wax la qabsanaa si aan dunida wax ula qabsanaa waa inaan ognahay gurigeenna waxa ka jira ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan sheego arrinkani wuxuu daahfur u yahay isu socodka labada waddan wuxuu kordhinayaa ganacsiga labada waddan wuxuu hagaajinayaa xiriirka labada waddan waxaan mahad celinaynaa madaxweynaha dawladda Kenya safaaraddiisa dhammaan shacabka Kenya waxaa kaloo mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo arrinkan si hagar la'aan ah uga shaqeeyay waxaa kaloo idinkaga mahad celinayaa dadaalka aad arrinkan u soo gasheen waxaan idin leeyahay waqtigii dalkan dib loo dhisi